iyadoo guud ahaanba gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland maalmihii la soo dhaafay ay ka socdeen barnaamijyo waaweyn oo lagu taageerayo khudbadii taariikhiga ahayd ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka jeediyay shirki ka dhacay wadanka Djibouti ayaa shacabka ku dhaqan degmada Wadaamago waxay maanta isku soo baxeen barnaamij ballaaran kaas oo ku taageerayaan khudbadaasi taariikhiga ah ee madaxweynuhu ka jeediyay shirki ka dhacay wadanka Djibouti shacabka degmada Wadaamago oo ay hogaaminayaan maayirka degmadaasi xogayaha dawladda hoose iyo sidwaaha hay'adda barakacayaasha qaxoontiga qaranka gobolka Saraar waxay socod luga ku soo mareen jidka laamiga ah ee dhexmara bartamaha degmada Wadaamago waxaana ugu dambeyntii isku soo biyashubteen fagaaraha khayriyada ee degmadaasi halkaasi waxay kala duwan uga soo jeediyeen mas'uuliyiinta kala duwan ee degmadaasi waxayna dhammaantood isku raaceen in goonistaagga Jamhuuriyadda Soomaaliland yahay mid muqadas ah isla markaasina meel looga soo wada jeedinayo cadow kasta oo Soomaaliland ku soo duulaa annagoo bulshaweyntii iyo maamulkeedii ku dhaqnaa degmada Wadaamago waxaanu saaka halkan taageero buuxda uga muujinaynaa barnaamijkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdidii uu hogaaminayay waxaanu ku taageeraynaa guushii ay ka soo hooyeen Djibouti khudbadii uu ka jeediyay madaxweynuhu Allahu akbar Soomaaliland ha noolaato waxaan tahniyad ama shirkeenna ama munaasabadeennu daaran tahay inaynu taageerno shuruucdeena ama qalbigeena tusno adduweynaha iyo beesha caalamka iyo wadamada aynu jaarka nahay oo waxaynu ku tusaynaa waxay tahay inaynu nahay qaran midaysan qaran mida bulshadiisa xukuumaddiisa iyo bahweyntiisa dhammaantoodba hal mid ah waxaan aad u taageeraynaa khudbadii qiirada lahayd ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka jeediyay maalintii dhaweyd kalfadhigii lagu afmeerayay ama lagu da'furayay wada hadalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya ummaduna way ogtahay madaxweynaha waa salaamaya arrinka uu galay qadiyada waa ku taageeraya aad baan ugu taageeraynaa waxaanu halkan maanta ka taageeraynaa waanu ku hambalyeeynaa shir weynihii ka dhacay wadanka Djibouti ee wada hadalkii heshiisiintii Soomaaliland iyo Soomaaliya arinta wada hadalka waan soo dhaweynaynaa waxaanu taageeraynaa hadaladii ka soo baxay ee ka mid ah hadalkii gudoomiyaha golaha goortida ee ahaa waxay hore marka la dhameystiro ayaa wax dambena la wadaya Allahu akbar aanu nahay gobolka Saraar degmada Wadaamago halka kan waxaanu ka taageeraynaa khudbadii wafdidayada ballaaran ee nooga qayb gashay shirka Djibouti ee uu hogaaminayay madaxweynaha iyaga Muuse Biixi Cabdi Xildiid waxaanu ku taageeraynaa madaxweyne waad gudatay xilkaagii hana xadgudbin xilkaagana gudo Soomaaliland waa muqadas aad baan u salaamayaa dadkan reer Wadaamago ee sida wanaagsan u soo agaasimay madashan iyagoo muujinaya shucuurtooda iyo dadnimadooda haddaanu nahay Soomaaliland waxaanu nahay dad gooni isu taaga oo gooni isu taagoodu muuqday oo ay waxtarkoodu muuqatay oo ay isku filaashoodu muuqday ayaanu nahay cid kasta oo na taageertana waanu taageeraynaa waxaan leenahay madaxweynaha qodobkaynu ku dooranay ee ugu codaynay kaasoo aha gebigiisba waxay ahayd adadayga iyo qadiyadda iyo adkaanta uu ku adeegay qadiyadda Soomaaliland ayaa ugu weynayd waxaynu dooranay dalkayga waxa ugu dambeeya oo aan leeyahay naanbak noqosho dambe oo xamara nagama suursowdo madaxweynaha waxaanu sheegaynaa wixii aanu dooranay wuu ka yidhi meesha waa ku mahadsan yahay mid waxaan leeyahay Soomaaliland waxa leeyahay waa muqadas waxa weeye jiritaanka Soomaaliland iyo goonistaanka Soomaaliland waxa weeye waa muqadas ka noqoshana ma jirto midna waxaan leeyahay Soomaaliya waxaan leeyahay madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxa weeye waa inama yar waxa weeye aan ka soo joogin goobjoogna ka soo hayn dhibaatooyinkii loo geysanayay Soomaaliland waxa weeye madaxweyne Muuse Biixi iyo Salebaan Maxamuud Aadan iyo dhammaan cidda ka qayb gashay waxay ahaayeen dad goobjooga
oo ka qayb galay ama soo taagnaa dhibaatooyinkii iyo tacadigii loola geysanayay dadka somalilan waxaan leeyahay markaa soomaaliya tiisaba daryeela tu kalena ku daree wartiina daryeela jaamac boodacde warbaahinta qaranka somalilan degmada taariikhiga ah ee Wadaamago.